waxaa toddobaadkani garoonka kubadda kolayga ee Timacada lagu qabtay gabagabada tartanka ciyaarta taekwon oo ay soo qabanqaabiyeen maxadka barashada ciyaarta taekwon ee somaliland taekwon club. gabagabadii tartankani oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin oo horkacayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somaliland boss mire maxamed, mas'uuliyiin ka socday shirkadda True Cable TV oo maalgelisay tartankani iyo dadweyne aad u tiro badan. ugu horreynna waxaa garoonka lagu soo bandhigay ciyaarta taekwon oo ay ka qayb galayeen dhalinyaro aad u daayar oo soo bandhigay xirfado aad u sareeya oo soo jiitay dadweynihii ka soo qayb galay tartankani. موليد فارح أحمد وكوهد ليافك مامولك somaliland taekwon club ayaa ka warbixiyay ciyaarta taekwon iyo tartankani ay u qabteen dhalinyarada barata. waxaanu halkan maanta insha Allah taala ku qabanaynaa tartankii ugu horeeyay ee somaliland ka dhaca oo ku saabsan taekwon-da. tartankan waxa iminka isugu yimi intii soo baxday waxaana ku tartami doona somaliland international taekwondo branch 1 iyo branch 2 labadeeda qaybood ayaa ku tartami doona. ciyaartani taekwon-da la yiraahdaa asal ahaan waxay ka soo jeedaa wadanka Korea. waana ciyaarta kaliya martial artist-ka ama qaabka nafta loo difaaco marka laga hadlayo. waa ciyaar olympiga kamida adduunka oo leh tartamo caalami oo sanadkii mar la qabto sida kubadda cagta loo qabto sanadkii mar. marka ciyaartani waa ciyaarta kaliya ee ku jirta olympiga dunida. waana markii ugu horeysay oo somaliland laga qabanayo tartan ku saabsan taekwon-da. taekwon-du waa marka laga hadlayo hababka nafta loo difaaco saddex ayaa jira waaweyn oo caan ah oo dunida ka jira. waxa ka jira kung fu oo ka soo jeeda China oo iyaduna kamid ah hababka nafta loo difaaco kuwa ugu caansan dunida. waxa kale oo jirta karate oo ka soo jeeda Japan oo kamid ah hababka iyaguna nafta loo difaaco. waxa kamid ah ciyaartan taekwon-da la yiraahdo oo ka soo jeeda Korea. geestiisana waxaa hadalka qaatay Sakariye Koosar oo ku hadlayay afka shirkadda True Cable TV oo bogaadiyay dhalinyarada baratay ciyaarta taekwon club isla markaasina kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda. run ahaantii sharaf bay somaliland iyo inaga iyo mawliid iyo dhammaan groupka somaliland international taekwon u tahay in maanta ay midhahoodii goostaan oo ay qabtaan tartankii koowaad ee ka dhaca somaliland goboladeeda oo dhan. sharafna way ku mutaysteen. True Cable TV-na waxa ay had iyo jeer ale u heelantay laba shay in ay ka qayb qaadato dhammaan dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada iyo qaranka jamhuuriyadda somaliland qaybihiisa kala duwan iyo in ay ka qayb qaadato adeegyada cusub ee dalka laga hirgelinaya hadba waxa ay noqdaan. maanta somaliland international taekwon inaanu ka qayb qaadano sharaf weyn bay noo tahay. aadna waanu u boorinaynaa intan iyo in ka badan bana insha Allah inaanu qaranka iyo dhalinyarada gashano ayaanu meesha u taaganay. gabagabadiina waxaa tartanka soo xidhay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somaliland boss mire maxamed oo la dardaarmay dhalinyaradii ka qayb gashay tartankani isla markaasina bilado guddoonsiiyay dhalinyaradii kaalmaha hore ka galay tartankani. dhalinyaradan halkan fadhida waa dhalinyaradii u soo baxday gabagabadii tartanka. waxaan halkan uga mahadnaqayaa somaliland international
taekwondo inamadan u xilsaaran oo la yidhaahdo oo aada uga soo shaqeeyey barbaariyey inamadan yaryar iminka mid waliba ilaa kuwa yaryara arkaysa nin waliba naftiisa wuu difaaci karaa exercisena way ka heleen aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadnaqayaa intii ka soo shaqaysay oo dhan